labiska quruxda badan u soo xidhayay quraacda waqti hore u sameynayay waqtigooga u ilaalinayay ka warhayay aqoontooda iyo waayaragnimadooda taa waxaan ugu hambaliyeynayaa hooyooyinka si gaar ah waxaa kaloo u hambaliyeynayaa macallimiintii iyaguna dadaalkaasi qayb ka ahaa oo ugu horeeyo asaasaha Nuuruddin School Ismahad iyo sidoo kale saaxiibkay ninkii halkan ka sheegay inaan dugsiga hoose dhexe marna la wada qoray Ismaaciil Maxamed Cakush oo runtii aniga sharaf iyo farxad ay tahay markastoon ka arka shaashadaha in uu soo saaro jiil iyo arday runtii wadankan iyo dalkan wax badan taraysa waxa kaloo iyadana sharaf iyo inuu fadhiyo macalinkaygii Maxamed oo runtii iyadana uu maanta ka mid yahay madaxda wadanka oo aan madasha runtii si gaar ah isagana uga xosayo waayo macallimiintu wada ogtiin kaalinta iyo qiimaha iyo wanaaga ay ku leeyihiin qofka xafiiskayga markasta oo qof macallin yahay uu igu yimaado runtii waxay samaysaa dhadhan iyo micno gaar oo ka duwan micnayaasha fara badan ee dadka kale ay sameeyaan waayo wada ogtiin kaalinta uu macallinku kaga jiro bulshada macallinkayga halka fadhiya aad baan u salaamayaa Maxamed oo ah maanta aad garanaysaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka runtii dugsigu Nuuruddin wuxuu ka mid yahay dugsiyada magaca iyo faca weyn anigu nasiib ma aan helin inaan ardaydiisi ka mid noqdo inkastoo la idin sheegay inaan nin yar ahay haddana waqtiyadii dugsiga uu runtii soo kacaamay ama la aasaasay aniga iyo Ismaaciil waxaan ka mid ahay ardaydii wadanka markii dib loogu soo noqday waxbarashada la bilaabay runtii nasiibka aanu helnay waxbarashada Somaliland meel aan ahayn Ismaaciil waxba kama dhigan anna meel aan Somaliland waxba kama dhigan marka taasi waxay idin sheegaysaa markay madaxduna soo booqdaan ama cid masuulo dawladda ka socotaa noo yimaadaan waxay nagu oran jireen waxa tihiin madaxdii mustaqbalka waxa tihiin dadkan iyo dalkan cidda horumarkiisa iyo wanaagiisa ka shaqeyn doonta wad arkaysaan inay dhawoodo Ismaaciil dawaka jiilka inta leeg runtii u hormood ama 17,000 oo arday oo runtii ka sheegay khudbadiisa oo goobjoog ka ahaa runtii graduation kooda iyo soo saarkooda iyo runtii waxtarkoodaba marka idinkana waxaan idin leeyahay anigoo idin hambalyeynaya waxa tiin madaxdii iyo hormoodkii wadankan runtii uu sugayay hadday tahay injineero hadday tahay dhaqaatiir hadday tahay siyaasiyiin hadday tahay halabuur kale oo runtii dhammaantiin maalmaha ka mid ah mistiishkan aad iman doontaan oo runtii inta aan idhi idinkuna aad arday kale ku oran doontaan haddii Ilaahay dhahdo dugsiga Nuuruddin runtii sida ay aad sheegtay waxaan ka marxaati kacayaa inuu ka mid yahay dugsiyada reer Somaliland sanadkii hore ayaa waxaan qaadnay 600 oo macallin ayaa waxa lagu tartamayay dhammaan Jamhuuriyadda Somaliland iyo 300 oo kalkaalisay iyo caafimaad iyo runtii umulisooyin oo wasaaradda caafimaadka iyagana aan u qaadaynay ardaydii markaa Nuuruddin ka soo baxay ama ka aflaxay runtii waxay ka mid ahaayeen dadkii goobahaasi marka dib loo eegayo aqoontoodii iyo waayaragnimadooda la qiimeynayay dadkii ugu horeeyay bay ka mid ahaayeen runtii aadna waan la qirayaa in dugsiga Nuuruddin uu ka mid yahay dugsiyada saameynta ku leh goobaha shaqada sida Ismaaciil sheegay waxaan qirayaa haddaad cisbitaalka Hargeysa tagto ama cisbitaalada kale neerasta ama umulisooyinka ka shaqeeya ama kalkaalisooyinka kale ka shaqeeya ama dhaqaatiirta ka shaqeeya inay raad ku leeyihiin ama uu saameyn ku leeyahay dugsigan oo runtii anaguna aan dawlad ahaan iyo xukuumad ahaanba karaamada iyo wanaaga iskuulku leeyahay uga mahadnaqayno maxaa markaa iskuulku kaga duwan yahay iskuulada kale waa laba waxun qodobka koowaad oo ah quality-ga ama tayada iskuulka oo sareysa laba dadka maamula ama gacanta ku haya oo runtii waqti iyo dadaal badan geliya sidii dugsigan uga duwanaaha dugsiyada kale iyo sidoo kale qodobka saddexaad oo sidii loo casriyeyn lahaa agabka ay wax ku baranayaan iyo runtii meelaha ay wax ku baranayaanba saaxiibkay Xuseen oo runtii animaka ka sheekaysanay madasha aan fadhino yani neecawday noo soo galaysa iyo environment-ka aan fadhino quruxdiisu waxay ka mid tahay halabuuradaas oo aragna hudheelayn tagnaa ee siya la shidaa sidoo kale waxaan tagnaa hudheelo buuqa iyo qaylada runtii uu baahaa laakiin madashan fadhino waxay ka mid tahay halabuurkaasi oo asaasayaasha iyo maamulaha guudba runtii uga mahadnaqayo halabuurkaasi inuu ka muuqdo madal kasta iyo goob kasta oo Nuuruddin ay ku astaysan tahay anigoo runtii
anigoo koobaya hadalka oo madax badan ay fadhido waxaan u hambaleynayaa dhammaan macallimiinta oo asaasuhu horeeyay mahad saaxiibkay walaalkay oo ku xigo walaalkay Ismaaciil oo runtii isaguna dadku waxay ku kala tagaan nolosha iyo waayaha markaan arko arday aan dugsiga hoose ama isku kalaas ahayn oo nolosha meel fiican ka gaaray aad baan ugu duceeyaa markaan arko mid kalena runtii waan gacan qabtaa wixii aan tari karo Ismaaciil wuxuu ka mid yahay dadkaasi runtii aan ku faano haddaan nahay ardaydii biyo dhacayga hoose ka baxay oo aan mar kasta iyo madal kastaba ka xuso Ismaaciil Maxamed Cakushiin uu ka mid yahay asxaabtayda maalin baan iskuul ku soo booqday class uu geeyay dabeetana wuxuu u sheegay ardaydii inaan isku kalaas ahayn waxay ku dhahdeen macallin adigu soo dhigan sababta adinka yar dhalinyarta iskuulka aad class ka wahaydeen marka waxaan ku Ismaaciil waliba uu naga yaraa ma ku intaasaan ugu daray Ismaaciil waxaan uga markhaati yahay hoggaankiisa runtii in mahad xulashada oo xushay uu ka mid yahay dadkii aniguna aan ku faanaynay waalidiin ducaynaya ardayda sida aad sheegtay waxaan sidoo kale aniguna gudoomiye ka ahay maxadka tababarka shaqaalaha dawladda oo imika runtii aan u rogayno jaamacadda tababarka shaqaalaha dawladda oo shaqaalaha dawladda lagu tababaro sidoo kalena dadka kale ee fursadda u helaan iyaguna ay galaan marka haddii ay fursadda helaan ardayda u sareysa oo ay galaan waxaan ballan qaadaynaa aniguna labada arday ugu horreyn aan scholarship siino aad iyo aad baan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.